Haddii ay tahay markii kuugu horreysay ee na soo booqatay, fadlan subscribe saar, kambalaalkana furo si aad u noqotid daawadaha koowaad. Wuxuu u soo waday mid ka mid ah subarmarketyada ugu waaweyn magaalada si uu ugu iibiyo moobilka ugu qaalisan xilligan. Waxaa loo dhiibay moobilkii si uu isaga tijaabiyo, laakiin wuxuu dhahay hawada ayaa xun, si fiican ma la isku maqlayo, bannaanka ayaa ula baxayaa. Ninkii subarmarketka iibinayay kama uusan diidin, maxaa yeelay waxaa la taagneyd gabadhii la socotay. Xoogaa kadib ninkii wuu soo noqon waayey. Ninkii subarmarketka iibinayay wuxuu u diray mid ka mid a shaqaalaha si uu u soo fiiriyo, laakiin shaqaalihii wuu soo noqday wuxuuna sheegay in ninka uusan joogin oo uu dhuuntay. Gabadhii waaga ayaa ku baryey, qof kasta oo meesha joogtayna waxaa ka soo haray yaab iyo amakaag. Naag weyn oo ka dukaameysanaysay subarmarketka ayaa dhahday, gabadhan wanaagga iyo daacadnimada badan ka muuqato, tuug ma noqon karto. Ninkii subarmarketka iibinayay gabadhii wuxuu ugu goodiyey inuu booliiska u wici doono, laakiin waxaa ka soo dhex gashay naagtii weyneyd, waxayna u sheegtay in dareenkeeda waalidnimo uu u sheegayo inaysan gabadhan noqon karin tuugad, maadaama ay gabadhu ku dhaaratay inaysan wiilka arkin maanta ka hor. Markaas kadib shaqaalihii subarmarketka waxay isku dayeen inay garaacaan gabadha, laakiin naagtii weyneyd ayaa dhahday, aniga waxaan ahay macaamiishiina, waxaana idinkaga dukaameystaa si joogto ah. Haddii aad far u qaataan mar dambe ma idinka dukaamaysan doono. Haddii aadna gabadha rumaysanina, booliiska ugu waca, laakiin intaas ka badan ma samayn kartiin. Ninkii subarmarketka iibinayay wuu ku qancay hadalkii naagta, wuxuuna wajahay gabadhii, wuxuuna ku dhahay, yaa waayo wiilka, maxaadse isku tihiin? Gabadhii waxay dhahday, waxaan muddo 2 bil ah iska naqaanay Facebook. Markii dambe wuxuu igu dhahay, waxaan rabaa inaan kula kulmo. Waxaana ku dhahay, haddii aad rabto aragtideeda, igu imow guriga waalidkayga. Wuuna imaaday, wayna isbarteen waalidkii iyo asagii, wuxuuna igu dhahay, waxaan kuu iibinayaa moobilka ugu qaalisan. Kadib halkan ayuu i keenay, wuxuuna sameeyey waxan. Ninkii subarmarketka iibinayay wuxuu ka dalbaday inay furto Facebookgeeda. Markay isku dayday gabadhii inay furto Facebookgeeda, ilin ayaa soo dhaaftay indhaheeda, maxaa yeelay mar hore ayuu jabsaday Facebookgeeda si uusan caddayn u reebin. Ninkii subarmarketka iibinayay wuxuu isku dayay inuu lambarka aabbaheed ka qaado si uu ula xiriiro, laakiin gabadhii way ooyday oo waxay dhahday, arrinkan hadduu aabbahay maqlo, kow ayuu iga siinayaa. Xoogaa kadib gabadhii waxay dhahday, waxaan awoodaa inaan abtigay la hadlo. Wayna wacday. 15 daqiiqo kadib waxaa meesha soo gaaray abtigii oo wato mid ka mid a gawaarida ugu qaalisan xilligan. Abtigii wuxuu u soo galay subarmarketkii si edeb iyo ixtiraam leh, mana uusan doonayn wax tafaasiil ah, wuxuuna laabta geliyey gabadhii uu abtiga u ahaa, asiga oo ka tirtiraya ilintii. Wuxuuna weydiiyey ninkii subarmarketka iibinayay qiimaha moobilka, wuuna bixiyey iyadoo dhammaystiran. Wuxuuna watay gabadhii uu abtiga u ahaa.